dagaal aad u xoogan ayaa subaxnimadii hore ee saaka ka bilowday magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn kadib markii ay ku soo duuleen ciidamada maamulka Hargeysa oo ku hubaysnaa gaadiidka dagaalka damacoodana uu ahaa inay xasuuqaan dadka ku dhaqan magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn. dagaalkan oo socday muddo 7 saac iyo badha ayaa ka dhashay kadib markii ciidamada huwantu ay weerar gaadma ku soo galeen hareeraha magaalada oo laga hurday. dadka shacabka ayaa si xeelad leh ugu fasaxay inay u gudbaan gudaha magaalada iyadoo qasaare gaarsiiyay xaafadaha dadka shacabka halkaas ay la dhaceen madaafiic aad u waaweyn. in yar kadib ayaa dad fara ku tiris oo ka mid ah shacabka magaalada Buuhoole ay weerar culus ku qaadeen huwantii dhex maraysay magaalada waxaana dagaal culus kadib laga sifeeyay dhammaan qaybaha kala duwan ee magaalada Buuhoole. qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay waxaana indhahayga ku arkay 4 ka mid ah dadka shacabka magaalada Buuhoole oo geeriyooday iyadoo dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay. haddaba si aanu wax uga ogaano qasaaraha soo gaadhay dhinaca ciidamada huwanta ee ku sugnaa maanta magaalada Buuhoole isuna soo bahaystay ayaa waxaan booqday jiida hore ee dagaalka waxaana waraystay qaar ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa dagaalka. ciidamadaas Watabiya Harag ayaa kala kulmay si xoogan ayaan ugu laynay dabeedna magaaladaas ma ay soo gelin qarkeeda ayay yimaadeen hoog iyo balambal u gaayana dib baan u caydin. waa tahay imika halkan aad ku sugantihiin waa balliga Shangalle ma doonaysaan inaad ka sii socotaan halkan mise halkan ayaad ku sugnaan doontaan? maya ku sugnaan maynee waa ka socon doonaa horey baan u soconaa ilaa qorilgu inaanu soconana waa laga yaabaa. waa tahay jabkii halagaad iga u geysateen maxaad nooga sheegi kartaa? ilaa 10 mayd hadda wana dhex yaalaan dhaawac badan iyo mayd badanna waa qaateen. waan gartay wax gaari oo leedka qabsaday ma jiraa waxaad iyaga ka qabsateen ma jiraa? iyaga 2 gaari midna waa ka gubnay midna waa ka haysanaa annaga waxna la ka gubay iyo waxna laga qabsaday midna ma jiraan. aadaya ku salaamaya. waa mudan adaam. halkan waa wadada aada magaalada Shangalle waxa halkan ka muuqanaya waa raadkii gaariga beebeega oo la cayrsaday sida aan malaynayo inaad kamarada si wacan uga boganaysaan waa raadkii gaariga beebeega ay wateen ciidamada maamulka Hargeysa ee maanta cawaaqib xumada kala kulmay shacabka ku dhaqan magaalada Buuhoole sida weyn loogu jabiyay iyadoo farxad iyo damaashaadna imika ka socoto gudaha magaalada Buuhoole halka ciidamada nabad sugidina ay joogaan jiida hore ee ka shisheysay magaalada Shangalle. bal kuwan waa qaar ka mid ah ciidamadii saaka jabka weyn u geystay ciidamada maamulka Hargeysa ee ku soo dulay shacabka. bal ka waramayeen xaaladii dagaalka iyo halka ay wax marayaan imika? waxay marayaan wala soo weerareen laakiin abaalkoodan marinay si wanaagsan. imika halkee baad doonaysaan inaad ku sii wajahanaataan maadaama aad imika sii dhaafaysaan balliga Shangalle? waxaan ku wajahanaynaa ilaa halka joogaan. waan gartay ciidamadii aad baaxsanayseen imika halkee iyaga wax firxaday iyo wax dhimasho ma ka haysan wax wara? may warkama ay qaateen wuxuu kulmameed badan bay ahaayeen. way aad baa maasantahay jaamac. ayo walaaleen adigana waxa la yiraahdaa Cabdi Xasan. waan gartay jaamac bal ka waran dareenkaaga iyo maanta dagaalkan aad gashay dagaalkaad ma ku jirtay mise qoriga hadda gurmadkaad ku jirtay? waan ku jiray dagaalka. waan gartay dagaalka intii aad ku jirtay waxa ku soo gaadhay iyo waxaad cid gaarsiisay ma xaqiijin kartaa? wax aniga soo gaaray waxa jira go'ida igaga gubtay. waan gartay jirkayga waxba ma gaarin. waan gartay waxaan kale arkay cadawga dad badan oo rasaas ay ku dhacay waa arkay. waan gartay inay dhinteen iyo inay nool yihiin ma kala xaqiijin karo. si wanaagsan dadkaana way qaadanayeen cadawgu waa qaadanay. waan gartay iyagu sida wararka ay qaareen hoos xaqiijinayaan waxay aad uga dagaalamayeen gaariga dushooda waxay fantariga iyagu ma lahaayeen oo aad dhulka uga dagaalamayeen. way soo galeen magaalada ilaa ciidamada Buuhoole ee gobernimo u dirku ay ka hor yimaadeen iyaga daafacay iyaga ka hortagay iyaga magaalada ka saaray. waa tahay aad baa maadsantay adigu waxaad ka mid tahay dadka shacabka ee magaalada wax ciidan oo ama Puntland ama SSC oo iyagu ma idinka caawinayaan dagaalka? dhulbahanto dhan baa SSC. waan gartay dhulbahan waxa la dagaalamayeen dhulbahanto aha. waan gartay waxa iska daafacayna dhulbahanto aha. wax ciidan oo maamul ka tirsan iyagu dagaalka mid ku weeriyay? maamul Puntland baa naarag maamul kala naarag wax maamula waxa maarina ka nugu soo duulay cadawga nugu ah ee maatada yada weeraray. aad baad maasantahay. haya adiga bal ka waran dareenkaaga waxaad wadataa qoriga loo yaqaano baasuuka Soomaa?
dagaalkii saaka ay Soomaaliland u soo gashay sida fooq sharca buuhoodle xaaladii saaka ka dhacday ee laga kulmay difaaceedu wuxuu ahaa buuhoodle oo khaliya oo aan hadeeb qadarkii cid kale oo gurmada oo u timay aan jirin waa garta waxa weeyaan ciidanka hadda halkan ku sugan oo reeb buuhoodle oo khaliya oo aan cid kale oo welisay aan jirin baa ka saaray magaalada oo u badan dad shacab oo hadeeb qadarkeeda leh magaalada ku nool يا ضو ما ست سيد دراد وقت دبوا يسون قدام كلمنا وحوي قاشان كيان ودروينا ومنا بحينو ومنا ديبينو هدف قدر وحنا قد حيانا وكاف يا ضو ما ست عادي بسم الله الرحمن الرحيم ايه انا magacaygu wada على qalaad baa la yiraahdaa qofkii garanaya waa garanaya waa gart midii isweydiin ma leh asnam tusoo weerartay magaalada iyo dadka shacabka taas isweydiin ma leh waa gart waxa bayska labaad ah iyagoo xukuumad sheeganaya oo dad shacab soo weeraray nasiib wanaag hadana wax guul lama tagin si wanaagsan waxaanu halkan ka cadeynaynaa dhaawacooda iyo meydkoodu in khasaarahoodu 100% uu saayid yahay waa gart inta caalamkana waxaanu tusaynaa iyo websaytada adduunka u gudbinaynaa xaaladda faqor sharca dadka shacabka ah ee tignikada lagu weeraray guryahoodii loogu yimid iyo halgoodii iyagoo reer ah dawladnimada loo sheegtay ee shacabka loo gashay si wanaagsan waxaanu kaloo dadka iyo adduunka u baahinaynaa inaanu ka guulaysanay iyagoo danaysanayana ay tagay يا ضو ما ست halkani waa qaar kamid ah xaafadaha magaalada Buuhoodle oo rasaasta sida xun loola dhacay halka sidoo kale albaabka guriga ayaa si aad u gubtay halkaasina waa meel daloosho oo qori weyn iyadana ka baxay halka muuqanaysa guriga jinkadiisa ayaa iyaduna rasaas badan oo aad ugu taala sidoo kale guriga kale ayaa isagana duqeyman kuwaas oo kale ku yaalaan gurigan ayaa imika sida halkaas ka muuqanaysa way gubanaysaa halkaasi waxaana ku dhacday rasaas waaweyn bal walaal waxaad nooga warantaa dadkii guriga daminaya baad gurigan goormuu gubtay markii ciidanku la soo jabiyay markii uu soo jeestay guriga dileen markii laga soo saaray magaalada ayay gurigan gubeen miya wax dhaawac mid ka soo gaadhay dadkii shacabka ay ku sugnaa guriga maya guriga alaabtii ku jirtay ma gubatay qolka yar baa wax yar aan ka saarnay waan gartay gubay markaa wax khasaare intee lag baa soo gaadhay markaad qiyaasi kartaa ma qiyaasi karno miyaan qiyaasi karnaa sariiri baa gubtay oo jaad walba waa gubtay raashin baa gubtay jaad walba imika waxaad ku rusheynaysaa biyo ku rusheynaya ninkana guriga uu daminaya guriga halkaas waa qiiqaysaa waana qaar kamid ah xaafadaha shacabka bal adigoo magacaaga ku bilaabaya hadda waxaad wadataa hubka waliba nooca waaweyn ee gaariyada yar lagu qarxiyo xagaad ka timi horta imika hadda waxaan ka nimid meesha cadawga nagu soo duulay xaqdarrada nagu soo duulay sanamtu ay nagu u caadsanay oo leeyahay shangalle hadda taarsanayaan haddana oo ka daba tagin waan gartay waxa sheegtay in shangalle ay sii socdaan ay ka sii socdaan maxay idin qorshaysay idinka markaa waxaan noo qorshaysay inaan ku hadii lahayd ma aanu hargeysa isku wareysano si wanaagsan cadawga waa isarki jiraa oo mar walba jabbi jireen hadda insha Allah ka hadhmayno warka waa ka hadhi jiray wax dhaawac intee leeg xaggii ka soo gaadhay ma badna ilaa 5 qof ilaa 4 qof waa gartay xaggooda bal maxaad inooga sheegi kartaa iyaga xaggooda waxay dhahaan wiil ay soo daayeen waxay dhahaan meydkii gaarigu uu qaadi kari waayay gaari kalena waxa ambulance waa qaaday ciidan guutada kalena ciidan baa uga yimid sarkaalka uga yimid gaaribaawurtu ay qaadi karnaa isii wiil wiilasha qabteen ka soo daayay hadda noo sheegay warbixinta way marka maanta dareenkaagu waa sidee waa mid farxad leh oo aad qurux badan oo qiimo badan aad baa maasanta isku soo wada duuba dagaalkan ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli shalay uu iclaamiyay dagaal lagu qaado deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn hogaamiyaha maamulka Hargeysa Siilaanyo shacabka ku dhaqan magaalada Buuhoodle ayaa caawa u dabaaldegaya guusha taariikhiga ay ka soo hoyeen dagaalka ay la galeen ciidamadii huwanta ay isu soo baastay kuwaasi oo ay dhirbaaxo xoogan ku dhufteen Axmed Abdiqaadir Jabaan Darwish TV Buuhoodle